السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي قالقة يوتيوب جنرال يوتيوب سو دوادا إن واجنك مدة الصومالية دون ولاشين خضرة حنقول سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. welcome to الجنرال. إن ما أنتم حاسة مثلا نحبا بسوار كيسينكم حيقول جرا دري قنتو بردادة مركو جلع دو قنتي قبصتها إن وحبدي يروحي لي بالدقاقة أو تشبط لغو سمايا بردادة إيه بسشة بردada yaan waxaan ku sii kashay biyaha dhacaanka aan lafteer hilibka ku sameeyay digaaga marka bardada iga jilcay dhima waxaan basashan ay bislaatay dhibaato ma jirto in hadda waxaan karsanaynaa maanta digir baan karsanaynaa insha Allah digirtu waa tan xalay baan karshay marka galaaseerkan gashay waqti waan u waayay hadda waan dalacaynaa insha Allah la socda digirtu waxay leedahay caafimaad aad u fara badan waliba waa 3 digirood oo isku daray in waxa ku cuni kartaa ceesh digirtu waxay leedahay fiber waxay leedahay nafaqooyin aad u fara badan waa 3 digirood isku jira oo kala cayn ah marka laba aad baa bislaadeen laakiin mid baanan aad u bislaan tanad moodaan inay soo taagan tahay iyadna way bisishahay laakiin dhalankeeda in iska taagnaagto bisay la'aan uma taagno in marka hadda doon dalacanayna dabka waan daartay alaabtan way bislaatay waa basal iyo bardho iyo la firo digaag ah half zucchini iyo xabad karoota ah ani lama jecli zucchiniga iyo karootaha inay bislaadaan lama jecli laakiin basashan jeclahay inay baabacdo ay burburto ay ka dhamaato ay baabacdan jeclay basasha laakiin qudaarta kale dabka lama jecli هذا بردنا ما يجي جلع دواي بس لا تردي مالهان لأن كل واحد حنقول دريا بهاشاس مركوا كاسة للسعد أحبابي للسعدة للسعدة إن شاء الله waxay leedahay ahbaabi digirtu waxay leedahay caafimaad fara badan waa cunto ugu jaban uguna nafaqo badan weeyaan markaas waxaan soo tuntay toonti oo fresh ka ahayd waan ku wada darayaa waxba kama reebaayo waxay rabiyaan ku soo dhaqanaya sabab gunti waxay iga qabsatay waxaan rabaa gunti inaan kaga soo kiciyo ay iga qabsatay marka ahbaabi kiram bar waxa cuntada borotiin kala fiican in la isku cuno oo healthiga ah waana cuntada nafaqada leh marka cuntada adi nafkaadaysa lama cuno fat iyo subag iyo baruur ku saaraysa laakiin cuntada adigana wax ku taraysa miisaankana kordhin baa la cunaa toonti waan ku daray saarkaysiin waxaan isticmaalayaa kamsartii oo ii shiidan waxaan isticmaalayaa مسكوا يبسل هاي marka soo dhawaada xabaabi insha Allah aad baan soo dhaweynaya waa filfil hurud organic hurud waa caafimaad qooti organic wajiga la marsanayay laakiin saan waxaan ku darsanayaa cuntadayda alaabta marka saa u dalacato galaaseerkan ayaan gelinayaa waqti lama hayo marka la animaado ama ani xaajiga nimaadnoon baan weelka qof walba weelkiisa ku soo ridanayaa rootiga la iska soo qabsanaya ama ceeshka la iska soo qabsanaya ama miisku saarnaanaya waa la kululeysanaya waa la cunaya wixii lagu darsadaaba waa salad yar haddii waqti ku saamaxo haddii kalena intaas kugu filaanaysa dad xitaa aad xilli dambe shaqada ka yimaado aad ku cashayso cunto calool ku gelinaysa maahan waxaan ku soo googoostay hal xabood xabuubka ama timaadka yaanyada burburna waaweyn iyo jeex oo barbarooni aga waxaana ku jirta 4 xabo basbaaska cagaarka ah
intaasaan rabaa inay isla soo falgasho ay soo dhex galaan kabacdina aan isku soo noqono markaan ku darayo maxaa la yiraahdaa aan ku darayo toonta marka axbaabi cuntada waxtar kale aan nafteena aan la ogaano insha Allah ani kulay channelkayga waxaan soo gashaa waxa healthigaan baan soo gashaa walaalahayna aan la share gareeya aan la jeclaa inay ay cunaan maadaama cuntoon karnayso cunto cunayso waxa wixii waxtar la iska cunaa marka waa kaasa waxaan isku soo noqonaynaa wixii u dambeeyay insha Allah videoga dheer baan diidanahay inaguna aad dibsanaysiin si aad uga faa'iidaysatiin insha Allah waxay raayan yaayada shiishidana ku dari doona haddan waxaan ku dari doonaa misirkaas iyo maraq digaag baa ii dhiban insha Allah isku soo noqonaynaa ahbaabi buku maanta aad buu kulyahay buku markuu kulyahayna dhariyaha umugogo aad buu zaad u yahay in waa isku soo dhex galeen alaabtii waxaan isticmaalayaa hal qaado yaanyada shiishiidka waana ka dhaafi kartaa yaanyada shiishiidka muhiim maahan inaad yaanyada shiishiida ku dartid aanu cadaanka aan jeclahay laakiinse yaanyadana way ku qurxinaysaa dhibaato ma lahan waxaan isticmaalayaa laba muqaacado yar oo maajigaas aan isticmaalayaa biir baan ku daray inta markaan isdhex geliyo insha Allah ay hal mar isla soo karaan waxaan ku dari doonaa digirta ama misirka ama cadaska insha Allah marka waa cunto caafimaad leh oo caafimaad qabta oo wax ku taraysa oo miisaan ku saaraynin qofkeeda miisaankiisa inuu kontrolo waa inuu raadiyo cuntada oo soo baxda cuntada soo baxdina waxay leedahay nafaqo waxay leedahay zaa'ida iyo waxtar fara badan bay jirka u leedahay marka ahbaabi kiram in hadda markuu hawa xir soo karo digirteena ay noo diyaarsan oo ku darsanayna haddii la qadaro marka digirta ayaan ku darsanayna digirteena waatan waa aragteen marka insha Allah saasay u egtahay waa qurux waa nafaqo iyo caafimaad insha Allah markaas la socda بعد واحد مركز أو سكرته وهن كورده يا دقيقتان وهن كورده دونا سوق دي دانتو شوفي قدري دونا ويكرسم يسا مركا waxa lagu cunaya ciish insha Allah marka la socod wanaagsan waa isku soo laabanayna ahbaabi kiram ahbaabi waan ku shubay fiidooga waxaan mooday inuu daarnayn gadaal waan ka sii fiirinaa waan ku daray misirkii waan ku daray digirtii suugadii markay soo kartay in fiidooga markaan daaray anoona daarin kamarada ana daarin codka ayaan mooday inay shaqeynayso marka ka raali noqda waxba inima dhaafin waa kan markaan ku darayaan mooday inaan daaray laakiin kamarada ma daarin baasha iga xidhanto waan hagaajiyay waxaan mooday inaan codkana taabtay marka codka ma taaban bay ahayd marka waa kana waan isku daray ma sha Allah sidan uu qurux badan tahay waxaan dhaafay ma lahan sidan uu qurux badan tahay waa xilliga xagaaga waxa si siyaada ah ina hilib iyo baroor iyo baasta la cuno waqtiga xagaaga waa xilliga kuleelaha samarka lagu jiro kuleelkuna bishan lixaad waa zaa'id ba marka waa la iska ilaaliyaa biyo casiir iyo liindana la dhugu dhexriday iyo khayaar lagu dhexriday iyo waxa la cabaa biyo fara badan iyo waxa la cabaa oo kaliya haati cunto yar fudud oo sahal ah oo waxtarna leh marka aad baan i salaamay insha Allah iska kaysareen bariyaanka oo isaran kuna hagaajinaya ورحمة الله وبركاته صحابتي دقالقة وانصو دياري فولكي واكن وانصو ديار سدي انتنا نكو قضينايا عيش بأيالا وعيشكي أو شاني قاها عيشاني أما عيش عربيت
weeyaan marka waa kaas waa qadada fudud li'aana ma rabo qado oo aad u fara badan ama wax culus ma rabo dalku inkastoo kulul yahay oo biyo la cabayo biyo ay naftii biyo rabto markaas waxaad iskaga yareyn kartaa cuntada oo faraha badan markuu waqtigu dhulka san kuleelaha u yahay waxay iska normaana inaad cunteera iska normaana inaad cuntid baa fiican waa basbaaskii maalintii dhood in la qaybtamaya kaydka saliidiisii buu wataa intaasaan ku darsanayaa marka axbaabi waatan qadadeeda sidan ay ku dhan tahay marka insha Allah intaasaan la qaybtamayay waa qadadii waa qada caafimaad loo saxalay oo aadna u fudud maaha cunto culus marka insha Allah waxaan rajaynayaa intaad video ka faa'iideen oo waxuna ka faa'iideen insha Allah channelkeena wax kasta ka faa'iidi doontiin waxyaalo badan oo fiican oo waxaan soo hayaa sheekooyin xiisalaan soo wada marka insha Allah iniga asxaabteeda ila sii joogto waxaan iga codsanayaa please waxaan iga codsanayaa inaad samis appka iyo like share iyo comment igu caawisiin qofka igu asxaabta igu cusub ee soo beeraysan iniguna inaad igu caawisiin subscribe ka mar laba aan tilmaamin si aad nala socotid fiidiyoyaasheena subscribe taabo meesha kambaleelka marka ku soo baxda kambaleelka furo si aad fiidiyoyaasha iyo casharadan soo galin aad ugu noqoto qof nala socda oo teamkeena ku jira teamka khadra cooking khadra health khadra nutrition marka insha Allah soo dhawo qalbi furan ku soo dhawaada in saxaabta soo beeraysa iyo kuwa fiidiyada dib u daawan doona aad baan soo dhaweynaa intiina dambe intiina horaba iyo intiina gadaal ka soo gali doonto aad baan soo dhaweynaa waxaan rajaynayaa fiidiyooga ku xiga insha Allah aan ku kulmi doono fiidiyo wanaagsan fiidiyo khayr qaba iyo amaana Allah insha Allah next video bye bye wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh